Baba oluyorum baba! waxay ahayd waa markii liisoo liigu aadiiday inanta aan dhalay waqti aad u farxad badan gala markaas alcamuum marka guriga waxa ila joogay walaalkay Cabdikiin Cali Shaax walaalkay Aamin walaalkay mada way yaabantay aad u yaabay way naxeen war maxaa dhacayso way celin waayeen marka dareen aad u farxad badan oo ahaa aabanimadan iga keentay sidaan u farxay waxaan rabaa inaan fiidiyogan yaro ee kooban inaan kugu soo gabagabeeyo mahad celin sababtoo ah farxaddu waad ila wadaagteen aad baad idinkana community qurux badan iyo ducaba isku kay soo darteen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gabi ahaan Soomaali meel walba ee dunida ka joogaan gabadhaas inay quruxda badan aabaha aan u ahay Soomaaliya ay hooyo u tahay ee waalid u ah habar yar eedo walaal inta u ah maadaama ay la socotiin qisadeena ما شاء الله waxaan aad ugu farxay dareenkaas aabanimo markaas markii la soo wargeliyay inay gabar ay dhalatay gabar inaad ku curutina waa wax aad iyo aad u wanaagsan sidoo kale waxa halkan ugu mahad celinayaa dhalinyaradii markaan isku shaqada aan nahay haday ahaan lahaayeen youtubero haday ahaan lahaayeen tiktokero haday ahaan lahaayeen gabi ahaan Soomaali fanaaniintooda kuwa dhexe kuwa waaweynaa kuwa hadaba dhamaantood markaas aad igu soo hambaliyay waxa laga jooga hadda 3 days 4 days caawa la galaya laga jooga intaasna waxa la aamusnaa waa aniga farxadeed maadaama idinkana idin la wadaagay haddana Jabuuti waan ka soo baxay waxaan joogaa Hargeysa waxaan rabaa inaan dhammaan Soomaali oo dhan aan u mahad celiyo waxaan idinku mahad celiyo garamaayo sida waxaan noogu soo duceyseen ما شاء الله حاسكنا aad buu wanaagsan tahay ubadkana aad buu wanaagsan yahay midda kale oo qosol kalena waxay ahayd magaca markaas la soo dhigo wuxuu ahaa bilyan ma ahayn bilyan Soomaalida qaar saas ku wada kaftameen gabadha maxay tahay bilyanka loo bixiyay ma trillion loo bixiyo magaca marka oo runta ah oo ku qurux badanna waa bilyan liibaan aadan cali wax aad u qurux badan bilyan magaca waa saas bilyan ma aha dhab ahaantii waxaan kugu mahad celiyo garan maayo wajigayga waa ka dheehanaysaan farxadda inaan dareenka aabanimada iga keenay idinkana aad iyo aad aan kugu mahad celinayaa gabi ahaan Soomaali maxamed oo dhan fiidiyogan yar waxaan kugu talagalay inaan idin mahad celiyo maadaama aad noo soo ducayseen waa mahadsantiin idin leeyahay shaqo badanna waad iga arki doontaan صاحبada shaqo wadaaga aan nahana aad kiigu soo hambaliyeen oo ii soo duceeyeen hal ugu mahad celin kara ayaga laftigooda waxaan leeyahay dhammaan bahda fanka bahda majaajilada aad baa u mahadsantihiin niyadaasan idinka la socdaa anna aad baan idin jecelahay idinka sad noo jeceshiin ka darna annagana idin jecelnahay fariintina intaas ku soo gabagabeynaya dibna waan u soo laaban doonaa had iyo shaqo maadaama hal sano aad igu arkayseen gaagaabis aad u fara badan waxa la gaagaaban aan isla gaagaabina waxa idinka dhan hadeertaan aad wada fahmi doontaan waa mahadsantiin wallah Soomaali